بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaad channelkeena farxiya kushiin asxaabteeda qaaliga ah mar kale iyo muuqaal cusub maanta waxaan noo wadaa buskud aad u jilicsan maasha allah iyo macmacaan fudud soo dhawaad daawasho wanaagsan haddii aroos tahay way ku anfacaysaa galabtii waxaan ku dhahay xaajiga u samaysa ma fahanteen alaab yaro kaaliskaalga isku qaboojiyay iyo buskud aad u jilicsan laga sheekayni karin ugu dambeyntiina waa ujeedaan sida ay kusoo baxday waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan soo dhawaada daawasho wanaagsan macmacaankan waxaa waaye pudding caramel yaa ukun iyo caano alaab isku dheelitiran nafaqaysan aad ka heli doontaan insha allah marka hore waxaan ku bilaabanaynaa buskudka iyo qaabkan u diyaariyey muuqaalka hadduu kusoo gaaro like noo saar halkan waxaa iigu jiro kastar ama labaniyad qofba si u yaqaano hal qaadaan ka isticmaali doonaa intan waxaa ii yaala subag 2 qaad ayaan ka isticmaali doonaa waxaa kaloon ku dari doonaa ilaa 3 qaado oo subaga sixinta halkaa waxaa iigu jiro hayl shiidan baking powder hal qaadaan ka isticmaali doonaa insha allah 2 xabo ukun ah iyo 3 bakeeri oo bur intaas rabo inaan ka sameeyo waxaa kaloon ku dari doonaa ilaa 3 qaado oo caano ah marka hore waxaan sameynayaa waxaan soo qaatay baaquli waxaan ku shubaynaa hal bakeeri oo sokor ah bakeeriga aad uma buuxo kan bakeeri buuxa ma ahan bakeeri wax yar dhiman waaye qiyaastiisa bakeeri wax yar dhiman oo sokor ah ayaa waxaan ku shubay baaquliga kadib waxaan ku darayaa 2 qaado oo subagaas bluebanka ama sixinta haddii aad heli kartid labadooda mid la isticmaali kartaa ama waa isku darsan kartaa 2 qaado markaan ku shubay kadib waxaan ku shubayaa bakeeriga haafkiisa oo sixinta saafida ah oo sixinta looda ayaan ku darayaa insha allah intaan kadib waxaan ku dareynaa ukun waa inaad si fiican iskugu qastid sokorta dhan inay dhamaataa la rabaa haddii aad heli kartid sokorta shiidan kasii fiican sokorta shiidan waxaa hore le gacanta la galaysaa wixii dhan waa isku qasaysaa laakiin sokortan caadiga haddii aad isticmaalaysid waa inaad mashiinka u qaadatid oo mashiinka aad ku shiidid hadda waan soo shiideynaa si fiican ayaad u shiidaysaa ilaa sokorta iyo subagii ukuntii si fiican isu dhexgalaan sokortii inay dhammaato looma baahno sokorta inay muuqato sokortii ukuntii subagii markaad isku qastid saanaa la rabaa inay kusoo baxdo saa ujeedaanba kadib waxaan soo qaadanayaa hal qaado oo hayl shiidan haylka shiidan ayaan sidaa ugu shaqshaqeynaa hayl shiidan ama vanila isticmaali kartaa micno ma lahan intaas kadib waxaan ku darayaa ilaa 4 qaado oo caanaha saafida ah caano booraha soo qasi kartaa micno ma lahan caano booraha xitaa isticmaali kartaa intaas kadib si fiican iskugu qasaysaa buskudka mar badan hadduu kaa halaabay sidaan had u sameynaa u samaysa insha allah aad ayuu ku anfici doonaa buskud aad u jilicsan laga sheekeyni karin mararka qaar buskudka waxaa waaye dabka iyo qaabkaad u karinaysid ayaa laga yaabaa inay kaa adkayso kadib waxaan ku daray hal qaado oo baking powder isaa ujeedaanba qaado wax yar dhiman kadibna si fiican ayaa u qasaysaa muuqaalka hadduu kusoo gaaro like noo saar asxaabtiina la wadaag intaas kadib waxaan ku darayaa 3 bakeeri oo bur ah bakeerigii koowaad ayaan ku shubay bakeerigii labaad ayaan ku shubay sad ujeedaanba kadibna waxaan ku shubayaa bakeerigii saddexaad intaanan bakeeri saddexaad ku shubin labada bakeeri aan marka u hore ku qasayaa micnaha qiyaas ahaantiis waa inaad aragtid burka hadduu aad kaaga jilco ayaad ku daraysaa bakeeriga saddexaad qiyaastan sida haddaan anigu u sameynaayo intaas ku filan caano ka badan haddii aad ku dartid waa inaad burkii u kordhisid gacantaan la galaynaa si fiican ayaan usoo qasayaa hadda intaan wax kale uma baahno waa inaad si fiican u qastid ugu dambeyntii waxaan ku dari doonaa hal qaado oo labaniyad ah ama kastar qofba si u yaqaano markaan burka ku daray inaan ku dara ayay ahayd laakiin waan hilmaamay micno ma lahan gadaal xitaa waa uga dari kartaa kadibna si fiican ayaan ugu soo qasayaa inuu ka adkaado lama rabo markaad qasaysid waxaa la rabaa burka inuu yara jilicsanaado waa dareemi kartaan sida uu jilicsan yahay maasha allah timirta intaan ka diyaarsanayo oo keliyaan daboolayaa timirta ayadoo diyaarsan oo laf lahayn oo kuskuusan oo micnaha sida burka camal hadda loo xashay u xashan waa la helaa supermarketyada laakiin caadi waaye sida adaaba samaysan kar soo maaha lafta lee ka saaraysaa lafta markaad ka saartid kadibna waad isku dhex celcelinaysaa waa ujeedaan dhowr xabo oo timir ah qiyaas ahaan ma aqaani intaan ka dhigay laakiin waa iska soo bibixiyey laa adi in yaroo kuusan waayo kadibna subagaa gacanta marinaysaa kadibna waa xashaysaa waa isku dhex celinaysaa timir miyaad leedahay mise waa wax kale maasha allah aaday u macaan badan tahay saanaab kasii fiican markaa sidaa u diyaarisid gacmahaaga shaambada ku dhaqo micnaha gacmaha nadiifi kadibna saas u hagaaji waa ujeedaan mid walba saasaan usoo hagaajinayaa dhaadheerkaas timirtii waan soo diyaariyey hadda waxaan rabaa inaan buskud ka habeeyo dhinaca kale foornada waa inaad sii shidatid 250 aad u geynaysaa
buskudka sidiisa wuxuu u baahan yahay dab badan oo maxaan ku irahdaye dab aan yareen, dab badan u baahan yahay. si yaruuna ku karayaa si dhaqsi ah insha Allah muuqaalka dhammaysti aad uga faa'iidid. saa u jeedaama burkii markaa sidaa u kala bixiyey dhexdiisa waxaan geliyey timirtii. haddii aadan rabin timirta ama aad ilka xanuun qabtid waad ka dhaafi kartaa, micno ma lahan. qaarkiisna waxaa rabaa timirta inaan ku habeeyo, qaarna waxaa rabaa inaan sidiisa ku dhaafo insha Allah. kadibna saas u warwareejinaysaa, uma baahna xitaa inaad isku dhedhejisid, saas leh hadee u wareejisid asagaa si fiican isugu dhagaayo. buskudka dhaadheer aad u fudud yahay, uma baahnid makiinad iyo waxyaabo aad ku jarjartid. mindidaada isticmaalaysaa iyo fargeetada qaabkan u habeynayo aad u fudud yahay, wuuna ku anfici doonaa insha Allah. mindida u qaadanayaa qiyaastii marka adiga aad rabtid, aada u dheereyn kartaa kastoo wax yaraa gaabin kartaa. saa u jeedaanba aadna uma dheero aadna uma gaabno. halkii xabo u horeeyay aad jartay ayaad ku qiyaasaysaa dhammaan si ay iskula wada ekaadaan. saan ayaan usoo jarjaraya saa u jeedaanba. kadib waxaan soo qaadanaynaa fargeetadii aad ku tuujinaysaa, waa inaad sidaas ugu tuujisid, waad ku riixaysaa. saan ayaan kusoo wadayaa maasha Allah. waa ujeedaan waa buskud aad u fudud, run ahaantii qof walbana uu sameyni karo. qiyaastii iyo qaabkan u sameeyo oo keliya haddii aad fahantida isku dardarsatid kaama halaaba insha Allah. qiyaastii inta hadda aniga aan samaystay sameyso si aad u ogaatid, aad maxaan ku irahdaye uusan kaaga wareerin insha Allah. waa ujeedaan mid walba fargeetada oo keliya ku tuujinaysaa. midka labaadna sidoo kaleeto timirta ayaa sidaa u dhexgelinaysaa. buskudka burka iyo timirta waa inay isla ekaadaan, kadibna waa isku soo laabaysaa. waa in timirta aysan muuqanin. saa markaa isugu dhajisid kadib alwaaxa u qaado, saas ugu wareeji. kadibna mindida u qaadanaysaa, saasa usoo jarjaraysaa. intaas kadib fargeetada u qaadanaysaa, fargeetada ayaa sidaa ugu riixriixaysaa maasha Allah. makiinada lagu jarjaro buskudka dhaadheer uma baahnid haddii aadan haysanin. haddii aad haysatidna waad ku sameysan kartaa, micno ma lahan. timirta markaad burka dhex gelisid kadibna waa ku hagaajisan kartaa. ugu dambeyntii waa ujeedaan foornada kululan gelinaynaa 250. wuxuu ku jiraa 15 daqiiqo oo keliya. 15 daqiiqo kadib waan kasoo saarnay maasha Allah. waa ujeedaan inaba caadi ma ahan, lagama sheekeyn karo. run ahaantii jileeciisa waa dareemi kartaan siduu u jilicsan yahay. caraftiisa buskudka markaad foornada kasoo saartid weel dabool leh ku gur ama baca ku guraysaa, afka ka xiraysaa 5 daqiiqo oo keliya. wixii ka dambeeya jileec waaye maasha Allah. waayo foornada markaad kasoo saartid kuleel waaye somaha, asoo kulul haddii dabool la-aan aad dhigtid waxaa laga yaabaa inuu kaa yar adkaado. ugu dambeyntii maasha Allah buskudkii waxaan rajeynayaa inaad idin cajabgeliyey. dhinaca kaleeto weelkan aad ujeedaan waa weelka keega ama toortada lagu sameysto. dabka ayaan saaray, kadibna waxaan ku shubay bakeeriga haafkiisa oo sokor ah. dabka u yareynaysaa intay noo dhalaalayso sokorta. waxaan soo qaatay 3 bakeeri oo caano ah. waxaan ku darayaa 5 xabo ukun. 3 xabo ukun ayaan ku daray hadda saad ujeedaanba. kadib waxaan ku daraa tii afraad. kadib waxaan ku daraa tii shanaad. 5 xabo ukun ah. waa macmacaan kaal iska arag waxaan ku daray heel shiidan qaadada haafkeeda. intaas kadib waa inaad si fiican u qastid. waxaan ku darayaa sokor ilaa 6 qaado oo sokor ayaan ku daray. kadibna si fiican ayaad u qasaysaa. macmacaan isku qabooji oo kaal iska arag waxaan ku dhahay qadada kadib haddii aad cuntid run ahaantii yaa ama xaajiga aad ku casuuntid waxaan ku dhahay inaba caadi ma ahan, waa laga sheekeyn doonaa. isagoo foorno la-aan waan soo geliyey channelkayga ayuu ku jiraa kan, laakiin foornadan rabaa inaan ku sameeyo. saas ula socda. sokortii sidaas markay u dhalaasho waxaad sugaysaa intay qaleel ka noqonayso oo weelka ay uga dhagayso. ayadoo sidaan u dhaqdhaqaaqaysa lama rabo inaad ku kordartid caanihii iyo ukuntii. waa ujeedaan way fariisatay, weelkii ku dhagtay. sokorta keligeeda la rabaa inaad karkarisid, uma baahna inaad biyo ku dartid. intaas kadib waxaan soo qaatay miirihiisa aad ujeedaanba. waxaan ku miireynaa caanihii iyo ukuntii. haddii aadan miirin waxaa laga yaabaa kor qaleyl ay noqonaysaa, way ka adkaanaysaa. waxaa la rabaa inaad miirtid. intaas kadib foornada saxanka ku jiro biyaan ku shubay. foornadana waan sii shiday 150 aa u geynaysaa biyaha markay kuleel noqdaan foornada gudaheeda. kadibna saana u dhex saaraysaa. wuxuu ku jirayaa 30 daqiiqo insha Allah. dabkan kor iyo hoos ayaad u geynaysaa. dabkana kor iyo hoos 30 daqiiqo kadib ayaan kasoo saareynaa. haddii aad rabtid ayadoo foorno la-aan waxaan soo dhigi doonaa xagga commentiga insha Allah. waxaan kasoo saarnay foornada. waxaan soo qaatay mindidaas dhuuban oo yariista haddii aadan
waxaa isticmaali kartaa qori yara sidaa ugu duraysaa. haddii wax qoyaan uu kusoo raaco waxaa ogaataa weli waaye. mindidaan ku duraynaa. mindida markaa sidaa ugu durtid gudaheeda waa ujeedaan wax qoyaan ma lahan. hadda waxaan sameyneynaa, waxaan gelinayaa maxaan ku irahdaa markay qabow noqoto waxaan gelineynaa firinjeerka. 1 saac ayuu ku jiraaya, kadib ayaan kasoo saari doonaa. haddii aadan firinjeer haysanin micno ma lahan, banaankaad u dhaafi kartaa. hadda waxaan kasoo saaray firinjeerka. waxaan soo qaadanayaa mindida sidaa u balaaran ama qaadida dabadeeda ayaa sidaa ugu riixriixaysaa, micnaha waxaad ka fujinaysaa weelka. gudaha hoose kuma dhegano, laakiin qaybtan koraa laga yaabaa inay ku dhegan tahay. saas ayaad ugu tuujinaysaa, aad ugu riixaysaa, macnaha kastoo wax yar wax ka fujinaya camal. dhinaca walba waa inaad sidaa u wareejisid. kadib waxaan soo qaatay saxanka ayaan sidaa u saarayaa, kadibna waan kusoo gedinayaa. waa ujeedaan maasha allah sida uu kusoo baxay. lama rabo inuu kaa kala daato, waana qabow, wayna is haysataa si fiican. waxaan ku dhahaa alaab yaro kaal arag isku qabooji waaye. haddii aad baritid alaabtan galab walba waa sameysanaysaa. maasha allah, qof walbaa sameysan karo. ugu dambeyntii waa ujeedaan. please like and share. jazakallahu khayran. waad ku mahadsantihiin daawashadiin iyo sida mar walba ay la socotaan. waxaa idinka codsanayaa like iyo share, asxaabtiina la wadaaga. mac salaam.